الحياة سكوليسي. بسم الله. ودوسينا الحياة ما أنت تاريخ دوكوبي لاتنكي بشيء أفراد لبقم لواتن ومادة في الصومالية فصل كلابات بيجك 10 كانوا حنقولها بيجك أفراد دواتنان نقعد كيس صدحات 10 كيسي صدحات حيوانك 10 هو ومقالة مكة ومقالة وفضل بدن مقالوين كأدونك ومقالة ونبينا محمد حريصي نبتقولي كركي سهاته كل شيء أنت وحلا سوق بيه حريصي نبتقولي كركي سهاته صدق نا لبضا نعودي كذا هذا نظهر وانا حريص طلبادو نبتقولي كذا وحوين كركي هذا نوحاته وكل شيء شن بقول كوبيت دواتنكي دلاشدي النبي عيسى كدب ومقالة أي كل احتال كبعدة لو تكذو مكة ومقالة لجوجتو تير كمدة تير شنطة تير إسلامك يحجك وحا كل حيال عيالك بيها سمسمك وحا كل ما سند والبا مسلمين تدوني دوادن قف والبا مسلم وواجب هالمر هل صلاة أو أدكتو وحا يودغتا بقولكن أو صلاة نبي يري نحريسي نبتقولي كركي سها هاتي هدي أنا إيجا صارين نعبها كمان تدكيبو كمان بحين هذه أنا شرحت بحيو مكة waxay ka mid tahay magaalooyinka adduunka magaalada ugu fadliga badan waayo fadligan waxay ku heshay waxay ku dhashay nabigeena subanaa naxariista nabadgelyo korkiisa haatay maxamed sidoo kale waxa ku taala kabcada inaynu tukano qiblada salaad walba aynu jeesano sidoo kale waxa ka soo burqada biyaha samsamka oo aan meel kale aan ka imanin biyaha samsamku kaliya waxay ka yimaadaan magaalada Makka sidoo kale magaalada Makka waxa ay dheer tahay salaada lagu tukado xaramka waxa ay u dhigantaa 100,000 oo salaadood saas ay ku heshay magaaladani inay noqoto magaalooyinka ugu fadliga badan faa'iidooyinka faraha badan ee laga helayo awgeed aan ku celiyo 10 akhriskiisa Makka waa magaalada ugu fadliga badan magaalooyinka adduunka waa magaaladii uu nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu ku dhashay 577 dhalashadii nabi ciise kadib waa magaalada ay ku dhex taalo kabcada loo tukado Makka waa magaalada lagu guto tiir kamid shanta tiir ee islaamka ee xajka waxa ku dhex yaal ceelka biyaha samsamka waxa ku kulma sanad walba muslimiinta dunida oo dhan qof walba oo muslim waa ku waajib hal mar inuu tago yani uu soo xajo waa hadii uu awoodo bimacnaa looga jeedo hal salaad oo aad ku tukato waxa ay u dhigantaa 100,000 oo salaadood nabiga yidhi naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaatee hadii aanay iga saarin lahayn dadkaygu kamaan baxeen ashirkeenu maanta ku saabsanaa fadliga magaalada Makka waxaan idinka doonayaa inaad 10 arday soo akhridaan aad ku celcelisaan si aad u ogaataan magaalada Makka iyo faa'iidooyinkeeda meelaha ay ku taalo waxaan ku taala Makka maxaa Sacuudiga qaaradda Aasiya aad iyo aad baa mahadsantihiin waan idin mahadnaqayaa khayr badan aan rajeynayaa students